dadka degan berbera ay qusayso warbajoog iyo qaranjoogba ninkaasi in lagu aamino saaxil waa shay xaaraana aad iyo aad xaaraan u ah waayo wuxuu u shaqeynayaa Ismaaciil Cumar Geelle sidii ay dekada u naafeen lahaayeen ay u burburin lahaayeen iyo hortaga laga hortagayo Mareykanka imanaya iyo dadweynaha maanta saxiisanaya inay gobolka saaxil ay maal gashadaan ama waxay ka qabtaan si traafikeena inuu helno oo noloo itraafo inaan nahay ninka laba wajiilaha ee lugna kula jira Djibouti lugna xaggan kula jira seen ugu aamini karaa inuu saaxil u noqdo barasaab taasi waa aqal xumo xabaashiisii buu soo doontay halkaasana lagu aasi doonaa imika waan u digayaa ninka Cateeye ee Djibouti ka socda hadduu hungureeyo gobolka saaxil inuu barasaab ka noqdo qabrigaagii baad soo doonatay baan leeyahay Cateeye ugu horeyn Cogreeb TV ku soo dhawo boqorka guud ee beelaha Subeer war boqor Khadar Awaadan sideed u aragtaa maalmaha soo socda waxa la filayaa barasaabka cusub ee gobolka saaxil ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro maalmihii dhaweed uu magacaabay oo xilka la wareegayo magacaabista barasaabkaas ayaa dhalisay muran badan iyo ka soo horjeeda qoyaanka deegaanka saaxil ugu horeyn bal sidaad adigu aragtaa boqor magacaabista iyo shaqada cusub ee uu bilaabayo Cabdiqani Cateeye Friid barasaabka cusub ee gobolka saaxil bismillaahir rahmaanir rahiim waan ka qaaday salaanta wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh Cogreeb TV waan dhawahay wixii waraysiye adiga waristana insha Allah ta'ala diyaar baan wahay anigoo ah boqorka guud ee Subeer magacayga la Khadar Maxamed Awaadan waxaan u sheegay Cogreeb TV su'aashaad weydiisay koobaad walaal ninka ahaan jiray wasiirka difaaca Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Somaliland ee fashilmay een ognahay wuxuu guday iyo wuxuu galayba dawladda maanta meesha ku talisay ee sheegata inay dawlad ka tahay Somaliland oo mas'uul ka yahay Cabdiraxmaan Ciro way la socdeen hawsha uu ku sameeyay dagaalkii Sool bari wixii ka geystay maanta way la socdeen isku wada ahaayeen dhamaantood taawan horaan u sheegnay laakiin su'aasha haday tahay maxad adiga ay kula tahay anu waxaan u arkaa su'aashaas inay khalad tahay nin fashilmay oo laba gacmoodinaya gacanna kula jira Somaliland Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Somaliland gacanna Djibouti kula jira oo Ismaaciil Cumar Geelle uu soo dirtay oo faashil ah in la keeno gobolka saaxil oo looga dhigo gudoomiye ama taa sheegtay maxay barasaab looga dhigo aad iyo aad baan ka soo horjeedaa tan dadka deegaanka ah ama nimankan deegaanka meesha leh berbera leh ee u saacabatumaya iyo ka madaxweyne ku sheega adlada oo madaxweyne intuba way la socdaan oo dabarjibinta Somaliland bay maartay ay hormuud u yihiin marka wax la yaabo maaha magaalada berberi waa goob xasaasiya dekada caalamiga ku taala madaara ku yaala Mareykankii waa soo degi doona dhawaan bal arimaha lagu eedeeyay barasaabkana waad la socotaa ma la aamini karaa maxaad se shacabka ugu baaqaysaa ugu dambeyn wariye su'aashaad weydiisay saddexaad aad iyo aad baan kaga madcelinayaa saa sheegtayba anigoo ah boqorkii guud ee Subeer ninkan aad leedahay ma la aamini karaa oo ma lagu aamini karaa inuu gobolka loo magacaabay barasaab ahaan loogu magacaabay inuu wax ka qabanayo ما أمنسني هذه سؤال صارت كمان أمينيو صوتها نو أمينينا وحوي مركو وزير الدفاع هاي الدلك بلقوا أميني حق قوته Somaliland Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Somaliland وحل صارنا ضيعة وسمية فربضان dabarjibinta uu ku sameeyay ciidamadeeni hadii ay ku sameeyay dib wal markii la saxaxay wala haya cajadiisi uu kaga hadlayo lahaa anagu axmar soo galmayno saylac badahaga siinayno isagoo ku hadlaya afkii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle isagoo afkiisa ku hadlaya ayuu TV ku soo duubay marka ninka laba wajiilaha ee lugna kula jira Djibouti lugna xaggan kula jira seen ugu aamini karaa inuu saaxiib u noqdo barasaab taasi waa aqal xumo kuwa aaminsanna waxaan kula talinayaa dardarankayga dambe reer Somaliland ama dadka degan berbera ay qusayso warbajoog iyo qaranjoogba ninkaasi in lagu aamino saaxil waa shay xaaraana
آدي آد حارانو waayo wuxuu u shaqeynayaa Ismaaciil Cumar Geelle sidii ay dekada u naafeen lahaayeen ay u burburin lahaayeen iyo hortaga laga hortagayo Mareykanka imanaya iyo dadweynaha maanta saxiisanaya inay gobolka saaxil ay maal gashadaan ama waxay ka qabtaan si itraafkeena inuu helno oo nolol itraafo inaanay dawlad jirta oo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliland kamid caalamka ay ka hortagayaan isaga Ismaaciil Cumar Geelle Xasan Guurguurte Cabdiraxmaan Cirro iyo inta la taabacsanba waa cadowga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliland marka baaq dheer iyo baaq ama waxaan ugu dirayaa ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan inta qusayso berbera in ninka iyo wax lamidaba aan la ogolaan la soo dhaweynin aniguna waxaan amrayaa haddana hay boqorkii Subeerawal ninkaas hadduu cag soo dhigo uu soo geli oo dhibaato ma leh laakiin ma ku noolaanayaa bas ayaa jawaabtu xabaashiisii buu soo doontay halkaasaana lagu aasi doonaa imika waan u digayaa ninka Caateeye ee Djibouti ka socda hadduu hungureeyo gobolka saaxil inuu barasaab ka noqdo qabrigaaga baad soo doonatay baan leeyahay Caateeyo boqor gudoomiyaha cusub Cabdi Qani asagoo dhawaan hadlaya Hargeysa waxa uu sheegay inuu leeyahay Berbera iyo Ceel Sheekh arinta adigu ma la qabtaa boqor maya su'aasha laba hadan ka jawaabo sheegashada uu sheeganayo Ceel Sheekh iyo Berbera uu sheeganayo waa wax lagu qoslo weeye waayo reerkan Ciise haddaan nahay anagu Ciise Muusaha bari ama Berberiye waxa ka degan galbeed haddaan nahay Ciise Muusaha galbeed wax xiriir oo la leenahay ama xad aan la leenahay nimanka Ciise sheegta ma jiraan haba yaraatee haddaan laga tageen gobolka Salal ilaa Saylac وأجران Subeerawal degan oo deganaansho u lahaa taariikhdana marka dib loo eego ay ku suntayihiin inkastoo ka soo guureen badankooduba laakiin mar ku haray laakiin deegaan ahaan Salal iyo Saylacba Subeerawal baa degan isagu tan uu sheeganayo leeyahay waxaan deganahay Ceel Sheekh Dulxaar mar aan booqasho ku marayba waxaan ku arkay reer kaliya oo yiri markaan wareystay 2023 ومحاك قلنا وايد Ciise oo maxaa ka keenay waan iska nimanuna ay igu dhaadeen marka waa niman iska reer guuraaya laakiin wax deegaanana kuma leh anna ma ba aaminsani kuna raacsani inuu sheegto inuu deegaan la leeyahay Ciise Muusaha galbeed waxaas wax weeyaan waa been iyo halida mid kale ninkan iscasilay ee fashilmay ee haladiisu iska daba imanayaan cid ruumaysata ama ku daba feesha iyada khaldam ma loo yaqaan